alla caashiqu muxuu dartaa iduleeyay. Sulaaqa waa gabar yar oo iskuulka dhigata, aad ayayna u dadaal badneed, mar walbana kaalinta koowaad ayay ka gali jirtay iskuulka, waxayna sanad walba qaadan jirtay abaalmarinta dugsiga. Sulaaqa ma lahayn saaxiibo badan, balse iskuulka dadka jooga oo dhan ayaa aad u wada jeclaa dadaalkeeda iyo sida ay wax u barato. Wax telefoon ah ma isticmaasho, oo cidnaba kama maqna, hooyadeed iyo aabaheed ayay la nooshahay. Maalintii dambe, iyada oo soo qaadatay abaalmarintii sanad dugsiyeedka, ayuu aabaheed ku dhahay, "Aabbo, maxaan abaalmarin kuu siiyaa?" Waxayna ku tiri, "Aabbo, moobeel ii soo iibi." Aabaheedna kama uusan diidin, wuu u soo iibiyay teelkii ay ka dalbatay, waxayna ku soo birtay malaayiinta dhalinyarada ah ee sida joogtada ah u isticmaasho baraha bulshada. Sulaaqa waxaa looga sheekeeyay dhaqan xumada taalla baraha bulshada iyo akhlaaq xumada lagu faafiyo. Sidaas darteed cabsi ayay ka qabtaa oo way ka shakisan tahay. Ninkii wax weydiiyaba baloog ayay iska saartaa. Muddo kadib waxay Facebook iska barteen nin garweyn oo aad moodo sheekh wadaad ah, kaas oo lagu magacaabo Siciid, oo jooga wadamada qurbaha mid ka mid ah. Si fiican ayuuna u waaniyay, wuxuuna uga sheekeeyay inay waxbarashadeeda ku dadaasho. Wuxuuna u soo diray sawirro iyo fiidiyow isaga oo dadka wacdinaya, wax wanaagsan u sheegayo. Waxay borofiilkiisa ku aragtay inuu mar walba dhalinyarada waaniyo, wuxuuna noqday saaxiibkeedii ugu horreeyay ee Facebook. Sulaaqo Siciid waxay u maleynaysay nin iska wanaagsan oo mustaqbalkeeda ka talinaya, qalbigeeda ayuuna saaxiib la noqday. Siciid wuxuu yaqaanay sida gabdhaha looga danaysto, sidaas darteed ugu horreyn ma uusan samayn wax ay kaga cararto, sida qof wanaageeda jecel oo kale ayuu u waaniyay si uu qalbigeeda u xado. Iyaduna way aamintay. Saaxiibo mar walba isla hadla ayayna noqdeen, marmarka qaarna lacag ayuu u soo diri jiray. Sulaaqa waxay ka yaaban tahay wanaagga ninkan, iyada oo qalbigeedu ku jiro jacaylkii qurbo joogga ee gabdhaha Soomaalidu caanka ku ahaayeen. Waxayba isleedahay nin qurbo joog ah oo sida dhan u fiican maba la sheegin ee kan talo muxuu yahay. Muddo kadib wuxuu u soo bandhigtay jacayl, wuxuuna u sheegay inuu rabo mustaqbal inuu la wadaago. Wuxuu kaloo u sheegay inuu qasri weyn u dhisi doono, dahabna uu u xirayo, janno adduun ayuu uga sheekeeyay inay galayso. Sulaaqa mar way faraxday ninkaas sida dhan u fiican ee mustaqbalkiisa u soo bandhigay, marna way naxday oo waxa afka la soo galay wixii ay iska ilaalin jirtay, waayo waxay jacayl u qabtay waxbarashadeeda. Markiiba kama aysan aqbalin, balse waxay ku tiri, "Bal waqti isii aan ka soo fikiro." Sulaaqa waxay la soo tashatay gabar saaxiibo iyo qaraabo isku dhow ahaayeen oo la yiraahdo Sucaad, daahana ka weyn. Wax walbana way u sheegtay. Waxaad moodaa inay waraaq ka aqrinayso wanaagga ninka. Sucaad ayaana ku tiri, "Ninkan sida aad sheegayso hadduu yahay, lama heli karo, waa nin fiican, misna lacag haysta oo akhlaaq fiican leh ee ha sii daynin." Sulaaqa oo markii horeba qalbigeeda saaxiib dhow la ahaa Siciid, waanadaas ay waanisay saaxiibadeeda Sucaad way ku qanacday. Maalintii dambe xilligii ballantii markii la gaaray oo ay is arkeen Siciid, ayay iyada oo wejigooda xishood ka muuqda ku tiri, "Waan ka aqbalay codsigaada aboowe." "Maasha Allah, mahadsanid macaan. Wallaahi ilin ayaa iga soo daadatay farxad darteed, ma aqaan wax aan abaalkaada ku gudo Sulaaqay." Intaas ayuu isaguna ugu jawaabay. Maalintaas kadib waxaa bilowday mawjadihii jacaylka. Sulaaqa oo ahayd gabar yar oo aan horey nin u soo jeclaan, waxay ka siibatay doontii waxbarashada, waxayna ku dhacday mawjadihii badweynta caashiqa. Si dhab ah oo dhammaystiran ayayna qalbigeeda u siisay Siciid. Maalintii dhan isaga ayay ka fikirtaa, habeenkii oo dhan isaga ayay la hadashaa. Subaxii markay indhaha kala qaado, qofka ugu horreeya ee qalbigeeda ku soo dhaca waa isaga. Siciid wuxuu aad u yaqaanay sida gabdhaha qalbiga looga xado. Waa xariif xirfad u leh hanashada qalbiyada dumarka. Wax walba oo dhib keeni kara wuu ka ilaaliyay. Wuxuu dareensiiyaa inuu u qabo jacayl xad dhaaf ah, wuxuuna uga sheekeeyaa mustaqbalka sida uu u rabo in ay wada noolaadaan. Marmarka qaar way weysaa, qadka oo ma soo galo, telefoonkiisana ma dhaco. Markaas ayay murugo la seexan weydaa. Jacaylkii iyo xiisihii wuu ku sii bataa. Maalmo ka bacdi ayuu soo noqdaa isaga oo marmar sii wata. "Waan xanuunsanaa ama taraag dheer ayaan galay," ayuu kala hor yimaadaa. Wuxuuna ku yiraahdaa, "Waan kuu xiisay xabiibi. Codkaada markaan maqlay, ilmo ayaa iga soo daadatay." Markaas ayay iyadana qalbiga iska tiraahdaa, "Wallaahi sida aad u jeceshahay oo kale ayuu kuu jecel yahay." waayo iyada ayaa is og
in markii codkiisa maqasho ay indhaheedu ilmeeyaan. Waxaa la bilaabay in video call lagu wada sheekaysto. Suleeqo markay muuqiisa aragto, wadnaha ayaa xoog u garaacma, jirkeeda dareen xad dhaaf ah ayaa ka soo buuxsama. Marmarka qaar waxay u malaysaa inuu gacantiisa laabta iyo luqunta ka marinayo. Markaas ayay is dhahdaa malaha waad riyoonaysaa.